السلام عليكم khiyaar waa idin salaam dhammaantiin meel walba aad dunida ka kala joogtaan waa anigoo maalin wanaagsan filimka idin haya maanta magaciisa waa Kuti ama Kati waa filim dagaal ah filim Bollywood ah filimkan wuxuu soo baxay 13 January 2023 waxaa director ka ah Asma Barwaj waxaa qisada qoray isla Asma Barwaj waxaa producer ka Laf Rajnan iyo Reqa Barwaj waxaa sameysay maalgelisay shirkado dhowr ah isku tagay sida Live Production, T-Series, Vishal Barwaj Pictures iyo Netflix. Filim Bollywood ah wuxuu kusoo baxay luqadda Urdu. Filim dagaal ah waa filimkii ugu fiicnaa uu dhowr sano jiro actor-kan caanka ah ee Arjun Kapoor. Arjun Kapoor ku jira dadka lagu eedeeyay inay meesha garabka ku joogaan waayo aabihiis waa Bonnie Kapoor, adeeradiis waa Anil Kapoor iyo Sanjay Kapoor. Sidaas ay tahay filmaantiisa badan ama guuleystaan dad badan waxay ku sheegaan inuusan ahayn actor talent leh laakiin dad qaarkood waxay qabaan inuu cunugan actor talent leh yahay laakiinse nasiibkiisa aad u xun yahay sidii ahaataba filimkan waa filimkii ugu fiicnaa oo ayantan uu sameeyo oo uu guuleystay waxaa filimkan jilaya actorin badan oo horkacaya Arjun Kapoor, Tabu, Nasruddin Shah, Kankana Singh Sharma, Radhika Madan, Sardil Barwaj, Kamat Mishra, Vijay Kohli. Sidii sheegay filimkan waa filim dagaal oo guuleystay filimkan IMDb India waxay ku qiimeysay 10kiiba 6 taasoo India waxay ku qiimeysay 5kiiba 3 Gaga 360 waxay ku qiimeysay 5kiiba 2 Indian TV waxay ku qiimeysay 5kiiba 2 NDTV waxay ku qiimeysay 5kiiba 3 Kaimo waxay ku qiimeysay 5kiiba 4 filimkan waxa qisada filimkan waxay qosaysaa ama filimkan wuxuu quseeyaa dhowr askari oo booliis ah oo korrupto ah oo shaqaystayaal ah waxay isku dayayaan inay dhacaan tareega ama gaariga habeenkii ATM-yada lacagta ku shubo iyagoo aan iska warqabin filim dagaal oo qisadiisa dagaal ku bilaabanayo dagaal ku dhamaanayo waxaan filayaa intiina dagaalka jecelnahay ka heli doonaan halkaas hadda kusoo gabagabeeyay faahfaahinta filimka linkiga filimka oo dhameystiran waxaan gelin doonaa sidaan bilowga sheegay waxaan gelin doonaa muuqaalka ka hooseeya muuqaalka ka hooseeya aan soo daayay maalin ka hor meeshiisa comment ay ku qoran tahay filimka maanta oo aan bin dhahay u koray commentiyada mar labaad aan ku celiyo linkiga filimkan oo Soomaali ah oo dhameystiran oo hijriye ah marka ku dhufato filimka ku toos ku geenayo waxaan gelin doonaa muuqaalka ka hooseeya aan soo daayay maalin ka hor meeshiisa comment ay ku qoran tahay filimka maanta oo aan bin dhahay u koray commentiyada mar saddexaad aan ku celiyo filimkan oo Soomaali ah linkigiisa waxaan gelin doonaa muuqaalka ka hooseeya aan soo daayay maalin ka hor meeshiisa comment ay ku qoran tahay filimka maanta oo aan bin dhahay u koray commentiyada commentigaas ku dhufo kadib wuxuu toos ku geen doonaa muuqaalka qofkii aan fahmin wuxuu ugu weydiin karaa meesha commentiga aniga oo sharaxayo mar kale iyo maalin wanaagsan sidaas nabadgelyo enjoy the movie. We are Somalians, we are Africans, we are Somalians, we are Africans.